السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. هدي إلهي كرها النقضة مقال كم حوالها لدونا لبا arrimood oo dadka badankooda aysan ka faa'iideysanin waqtiyada ay haystaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa sheegay waxa uu yiri نمعتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراق رواه بخاري. نمعتان لو نمعو مقبول أي كدقمان أما يسن كفايديسين فيهما لوداس نمعو كثير كوبضا أو من الناس دتك كمده الصحة وحي كليين عافما قبك إيوه والفراق كانشها أما فري تايمك qof kasta marka uu caafimaadka haysto ma dareemo waxa uu u sii hanqaltaagaa waxyaabo ka yaryar asaga macnaha wax noloshiisa ku saabsan oo uu ku haminayo ama inay dhibaato ku hayaan uu arko ayuu in badan ka fikiraa laakiin nimcadan uu haysto ma garawsado oo kama mahadceliyo sidaas daraadeed dadku marka ay caafimaadka waayaan ayay xasuustaan waayihii badnaa ay caafimaadsanaan jireen sidoo kale waxay majartaan dadka markaas caafimaadsan oo waa kii Nabi sallallahu alayhi wasallam uu lahaa caafimaadku waa taaj uu arko qofka xanuunsan oo kaliya wuxuuna uga muuqdaa midka caafimaadsan madaxiisa sidaas daraadeed waa nimco aad u weyn oo Ilaahay dadka ku galadeystay haddii maanta aad tahay qof caafimaadsan in badan Ilaahay uga mahadceli taasi waxaad uga faa'iideysanaysaa in Ilaahay uu caafimaadkaas kuu sii siyaadiyo arrinka labaadna waa firaaqa فإذا فرغت فانصب Nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa lagula dardaarmay marka aad kanshahayso khayrka badso firaaqu waa nimco uu Ilaahay bixiyo dad baa jira ayagoon waxba qabanin haddana si uun u mashquulsan oo waqtigooda wax Ilaahay raali gelinaya uga faa'iideysanin tusaale ahaan haddii waqtigaaga oo dhan aad adduunyo siiso sidaad wax u tabci lahayd firaaqada marka ay soo helaan ama waqtiyada firiiga ay yihiinna waxay ku bixiyaan waxyaabo kale sida inay ama seexdaan ama wareegaan qorshaha uguma jiro in ay ku bixiyaan waxay aakhiro ugu talagaleen marka waa la ogyahay dadku way mashquulaan oo adduunyada mashaakilaadkeeda badan yahay laakiin waqtiga firaaqa gaar baa looga hadlay waxaana lagu sheegay nimco waxaa lagula dardaarmay dadka inay ka faa'iideystaan haddii ay ka faa'iideysan waayaan waxaa la tilmaamay inay yihiin dad fursad lumiyay oo ay wax si ka yihiin marka isku day labada nimco inaad si gaar ah u dareento ogana faa'iideysato waa caafimaadka iyo firaaqe waxaa laga yaabaa inaad is weydiisto haddaba maxaan uga faa'iideystaa nimcooyinkaas isla haddaba waan haystaaye waxaad uga faa'iideysataa dikriga alle badi oo markasta afka ku hay dikrigu uu noocyo badan yahay waxaa ka mid ah quraanka oo aad akhriso salaado aad badiso waxaana ugu fudud midka carabka lagu akhriyo haddii ay tasbiix tahay haddii saliga Nabi sallallahu alayhi wasallam yahay haddii ay istighfaar tahay haddii ay xawqala tahay yacni way badan yihiin wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت dadka kuwa Ilaahay xusa iyo kuwa aan xusin waxa ay u kala dhigmaan mid dhintay iyo mid nool macnaha qofka iska nool ee adduunyadiisa uu xamaasha laakiin aan dikriga alle badinin qof dhintay buu la mid yahay midka xilli kasta Ilaahay xasuusan ee xuskiisa afka ku hayana waa sida qof nool dhamaanteen waan kala garanaynaa qof nool iyo qof dhintay waxa farqiga u dhaxeeyo sidaa daraadeed waxaa muhiim ah caafimaadkaaga iyo firaaqaagaba inaad dikriga alle uga faa'iideysato inaad xuskiisa carabka ku hayso
waxaad noqonaysaa qof Ilaahay uu karaameeyo, khayrka uu furo, sharta uu ka xijaabo, adduunyada nolol degan lagu siiyo. Alaa bidikrillahi tadma'innul quluub. Dikriga Alle qalbiyadu dejiyaa, murugooyinka Ilaahay ku fiidaa, farajka lagu furaa, aakhirana wuxuu leeyahay janno. Waxaa nafteyda iyo tiinagu u dardaarmayaa labadaas nimco inaan ka faa'iidaysano. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu noo fududeeyo oo na fahamsiiyo. Waad mahadsantihiin.